warun maanta waxaa rabaa inaan isdii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku rahdaye hees damboon qaado inay bataata halkaa iga egaatay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaan halkan usoo fariistay reaction oo ah walaasheeda qaaliladan oo arrin loo baahnaa ka hadashay, taasoo ah inay hore uga hadasho loo baahnaa ayaa maanta ilaahay qalbigeeda soo geliyay. Arrintaas oo ah inay dhahday fankii bataatanba waan ka baxayaa. Waa arrin lagu farxo oo aad iyo aad loogu farxo. Ani ahaantii aad baan ugu farxay. ilaan fanku ma aha mid dee adduunyo iyo aakhiro midna uu ku fiican ma jirto. qofka dee shaydaan baa ka taweyn oo laga yaaba inuu garab ku siiyo. maantana hadduu ilaahay ka saaro qulubteeda soo geli inay ka baxdo, waxaan leenahay aniga dadkii ugu xiranbo waxaan ku leenahay waa arrin aad ugu farxo. laakiin ha noqonin qofki inuu afka ka dhaho waa hadhowna tiisa gooni ka wato. taas ay aad u xun tahay. midda kale waxay si kale iyadana baaqo ugu dirtay dadka youtube-leyda ah. youtube-leyda kale heesaha oo janaaladooda ku jiro, fadlan qofka hadduu ogoleen uu raalli ka ahayn waxaa beriis ku raasita ayaaba iska yar ee ka saara idinkoo raalli ah. uma fiicno. marka aan aragno muuqaalka iyada ay soo duubto wax yar aan isla daawano idinkoo raalli ah. marka isla daawanaynaa. roob ayaa maanta noo da-ay inaan waxyaabo badan idin sheego oo nafteyda maanta iyo aniga iyo shaydaan aan soo kala gaarnay inaan sameeyo. wax kale ma aha. videoga waxaa rabaa qof walba oo islaam ah ama qof walba oo soomaali ama qof walba oo videoyadeeda daawo jira ama qof aan daawo jirin xataa inuu maaragtay awgeysaan. ma maqlaysaan? qof aan daawan jirin iyo qof daawanayaba dad aragtay ama muuqaalada hala gaarsiiyo. okay, iyo weliba dadka youtuberada ah iyo youtuberada isticmaalaan. marka horta maantay saaka markaa soo kacay jadwal ku soo kacay, haddaba aydintu weyne jadwal kale ayaa ku jiraa. sax wa caawa adiga seexanaysa xitaa waxaad ku fikiraysaa beri inaa wax qabsatid. berida markaa gaartidna laga yaabaa inay arrin kale ku qabsato oo tii rabbi ah aa waxba ka ogeen, laakiin midaadi aa qorshaysatay mid kabin inay timaadaa laga yaaba. waa run. okay, codsigaas aan wato maanta ina waxaa rabaa adinkana ilaahayna ku galabgala adinka duceysay ilaahay maxaan ku rahday suu maaragtay igu naxariisto dambdhaaf la iga dhigo la cafiyo adinkana ilaahayda cafiyo. okay, dabcan ani ahaan waxaan ku qabo ma lahan. dabcan waxaan ka hayana maba jiro. dabcan halka muuqaal ugu horey mooyaan. okay, waxaan rabaa maanta inaan go-aan ka gaaro. waxaa intaasoo sano ku jiray oo maaragtay aada xumaay. kolleyto ilaahay wuxuu raalli ka yahay ma ahayn si kastoo xataa oo dhaho maaragtay qofkaa fankiisa edabuu leeyahay ama kii fankiisu saas u yahay waa run. qofka fankiisa edabuu leeyahay waa edabuu leeyahay. edabta waxay tarays ma lahan, fan lay ku jirtaa. waxay kusoo kordhinaysa ma lahan. waa macaro ilaahay. marka mana haboono. marka walaan aran ilaahay raalli ka yahay bataatan ma aha. waa run. maanta waxaa rabaa inaan isdii sheego inaan bataatan wixii la dhahayo fan ama ha noqdo fanaannimo aan ku hees aan qaado ama meel aan ka heeso ama maxaan ku rahdaye hees damboon qaado inay bataata halkaa iga egaatay. maasha allah. waa erey aada u fiican aad kasoo fikirtay. waa fikrad aada u fiican oo hore ugu soo fikirtay. mise mid ha ahaataba xalay kugu dhalatay mise isla markaasba kugu dhalata ha ahaato. ilaahay ha kaaga dhiga midii ku rimooda oo aad dib dambe aad u gelin fanka oo waxyaalaha kale ku jireena dee heesaha kalena ee dadka kale ayagana qulubtooda soo galo ee kaa wada saaraan. aad baan u jeclaan lahayn qofku ilaahay soo hadeeyey oo waddo wanaagsan kusoo toosiyo. waa qof aad iyo aad u nasiib badan aan dhihi karo. okay, oo aan noqdo adigan i daawanaya aan fanaanka ahayn ee walaalkayga ee caadiga ah adoo kale inaan noqdo ayaan rabaa iyo weliba ka fiican ay suurto gasho insha allah. calaashaan waxay ujeedaa dee qof markuu fanaan yahay waa caan.
adduunyada dhan wada taqaano waa run qof mar caan hadduu yahana dadka kale lamid ma ahan dad waxaa jira caanimada ugu faa'iidaysto isla weyn iyo wax daran maan rabo topigaas inaan dhex galo mar kale laga yaabaa inaan muuqaalka soo diyaariyo laakiin dadka kale lamid ahayn marka dadkaas camal ay rabta inay noqoto qaaladan okay fankeyga hadda kor waa idii sheegay waxaan idhaa fanku waa ka baxayaa mardhow laakiin maalinba maalin bay kusii jiibaysaa maalinba maalin kaleba shaydaan baa kula sii tashanay wuxuu kuleeyahay maya ayaan iska yara joog kadib waxay wakaas waa run maanta hadaa ku fikirto ka baxaa dhahda shaydaan waa geeskaa soo galaya dhinacu kaa soo galaya dhinacu kaa soo galaya marka wuu kusii macaaneyna waxaad ku jirtid oo qabanaysa aad kugu sii macaaneyna maya meeshaan yartaad ka shaqayso lacagtaadan iska haysayso iska gurguro kadib waxawaa ayaan markaad joogto iska dhaaf intaas sano aniga fanka mar hore ayaa nacay laakiin maanta alxamdulilah xilliga ugu dambeeyey oo niyadeyda ay kasoo go'day weliba si cabsiila ay uga soo go'da ayay tahay sababaha jirana a idiin sheego maasha allah waa idin dhahay fanka waa ka baxayaa laakiin waxaan rabay qofku horta nafta kulama tashato naftu ti been maaha nafta kulama tashanayso eed kulama tashato maanta yaad joogtaa beriyaa lagu wadaa adduunka ilaahay maanta saaka markaa hurdada kasoo kacay waxay adiga saacado ka hor adiga ay ahayd markaan soo kacay wiil baa isoo wacay wiil markuu soo wuxuu yiri iblaayo mataqaana ahaa gabar xali meesheeda joogtay meesha aniga ka heysay geeskeyga ku ciyaaraysay ilaa baa ku dhaartay anaa heesay iyadana geeskeyga ka ciyaaraysay gabadhii ayaa dhimatay ayay ugu dhahay wallaahi bilaah watallahi waxay ila noqotay de waxaan caadi ahayn waan aamini waay waxaan ku iri uma gabadha markii meesha xali kasoo baxday dhimatay maya hadday dhimatay xagee ku nimatay gabadha waa gabar walaasheena waa gabar dad badan ay yaqaanaan ilaa hadda aniga beenkoodii ma sheegaayay gabadha waxaa layidhi jirkeedii waa agogo-ay mala arag sorry way jirtaa gabadhaas waxaa la yidhaahaa waa gabar caan ah munisha la yidhaahaa waxayna ka tirsaneed Somali React dabcan gabadha keligeed kuma dhiman meesha dad badan ayaad ku dhintay oo ilaa xitaa la waayay jirkooda qaar ah ana ka xumahay safarka saaka ee dadka walaalaheen u baxeen dalxiis inay aadaan Nairobi soo dalxiisaan banaanka ayuu ahaa safarkaas ay shirka ku galeen safar wanaagsan ma ahayn marka midda kale waxaan u sheegayaa dad badan oo qaar aan safarka shaqo ku lahayn aan aadin oo la dhahay way dhinteen xitaa aniga kula hadlaayo kamid ah lagu dhahay niyo inta qof ay soo wacday lama xisaabin karo ay ugu dhaheen warniyo waa arrinkaas jira saasa jiro maxaa dhacay waa noolahay waa noolahay xitaa muuqaal oo soo duubay marka inta horta ku dhimata Allah u naxariisto inta dhaawac ku noqotana Ilaahay ha caafiyo inta xanuunsan Ilaahay ha caafiyo adduunyada runtii waa gabagabo runtii waa gabagabo waa faanteen umaleena Soomaaliyeed marka de qof walba qofku ku agdhow xitaa daaqadooda u haysa iska fasax asaga dhanbo iska cafi waa faanteen umaleena marka intiis ku dhimatay Allah u naxariisto walaalaheena ku dhinteen saakay gaarigaas shirka ah kayo ilaa hadda aan aaminsanin qalbigayga aad u cabsanaya wuxuu cabsanaya waa wacaydaa wiilkii waxaan dhan nambarada ii soo diray wiil kaleeto oo meesheeda imaan jiro dadka kenkeyga jirto zayla ilaa hadda wiilkaas magaciisa bas aa lii sheegaya laakiin anay muuqiisay inaan garanayo waa garanaysaa dhigdha laakiin magacii maybe dad badan ana waxaa jira aan muuqa ka garanayo oo magacooda aanan garanaynin laakiin gabar aan caadi garanaya ay ahayd waxaa la horta ilaahay oo naxariisto adinkana usoo duceeya amiin ilaahay oo naxariisto inta meesha ku dhimatoonan idinkana ducaydinka mudan yihiin dadkaasna laga yaabo haday xitaa wax xun ay samayn jireen oo daa aragtay walaal iska dhigay muuqaaladaas dad ka sidoo kale ma fiicno dhileed ku qabo alla dartiis kaga dhigay adaalirne fasha usii socdeen la dhahay markii usii socdeen waxaa la gaarigii iyaga saaraayeen walaasheed iyo wiilal kale ay dad kale la saaraay way ka digtay balfiir malakuudka ilaahay balfiir qof markuu dilaayo siday doonta waa u dilay laba qofood bas baa war ku soo haray ku kala gaari kale raaceen ka war gaari kale markii raaceen isla daqiiqadiyaa la yiri gaari kale ta ku yimaado wiilkii uu go-ay gabadhiina waa la arki lahayaa la yiri ani ilaa hadda ma ogi horta ilaahay run kama dhigaan qof dhintana sooma laabto inta koowaad
laakiin waxa qarraacani u noqotay un aad uga naxay oo aan aad uga xumaaday waxa waaye shalay xalay iyo meesheeda joogtay weliba garabkeyga ka ciyaaraysa maantana la oofsaday bal fiiriya gabadha qof walbaba camalkiisu aakhira la tagaa yes waa run laakiin waxaa jirto waxyaabo qaar isla markiiba maxaa iisoo sawirmay anigii kama marna meeshiisay maana anigaa ka daran intaasoo qofood aniga ii imaadeen been maaha taasaa ka daran ka xanuun badan bedelkii booskii hadda maanta ay gabadhaas ku jirtay haddii aday ahaan ku jir lahayd aad bay qaraacan u ahaan inkastoo geeridana qof walba ay sugayso marka aad bay xanuun badan tahay fiidiyoyada xabadku miyaa soo geliyey isla fiidiyowga markaa soo gelina waa ka saarayay sayga private geliyey waxawaaye waa wada tirtiray wixii aan aniga hees qaaday ee ku jiray youtube-kayga waan iska tirtiray waliba wax badan kuma jiran youtube-ka raagaha kuu soo haray youtube-ka raagada iga tirtira ayaan dhaha waa kaa tirtiraa ku yiri waxaan kaloo rabaa aniga waan naxay waxaan ku naxay awlka fanka waa marabo habeen kasta waan cabsadaa habeen kasta waxaan ka cabaqaa nihu waxaan fahmi waaya habeenkii maalinta dadku isku fiilin maahan aniga habeenkii maalintii sida caadi oo habeenkii waa ka cabsi badanahay marka si kastaba ha ahaatee waxaan halkaan rabaa inaad iga gaarsiisiin dadka heesadeeda ugu jiran qofkuu doona ha ahaado qofkii fiidiyowgeygaan arkay bataatan inuu fiidiyowgeyga heesteeda uusan youtube-kiisa ku jirin meel kasta hadduu isticmaalo iyo haddii kalaba baliis waxaa idinka codsanaya walaashiis ka codsanaysaa inaa bataatan iga tirtirtaan heesaheyga oo dhan waa maqlaysaan messagekaas wuxuu ku socdaa dhammaan dadka youtube-leyda ah youtube-ley qaar waxaa jiro aan muuqooda la arkin laakiin heesaha dadka kale ka qaraawdo oo bariis ka raadiyo marka qofka inkastoo hees ay tahay dambi meesha ku jirto aysan wanaagsaneyn walaal iska dhili karay alla dartiis u dhili karay iyo soomaalinimo iyo walaashaada ka codsanayso dhilid iska dheh okay maadaama aniga aan fankii go-aankii ugu dambeeyay uu yahay aan ka gaaray codsi ayaan wataa qofkii inta fiidiyowgeygaan arko oo youtube-kiisa heesteeda ee kasii isticmaalo ama sii gishto aqriyo adduun ma cafiniyo ilaahay baa loo toobadkeelaa ilaahay baa u toobadkeelay heesta marale ma oga maalin walbaba waxaan isdhahay siraaqadana ilaah baa baxsho fankii hees iyo fan iyo balaayo wixii lacag iga soo geli lahaa ilaahay waxaan ka baryay oo markastana aan ka baryi jiray aan dhihi jiray ilaahayo siraaqad meel kaleeta iga sii maantay in aan bataatan aan fankeyga soo gabagabeeyey maasha allah muuqaalka kuma sii dheeraanayo horta waxaan leenahay walaasheena fikradaas oo qalbigaana maanta kusoo dhacday waddada saxan oo ilaahay ku tusay ilaahay mid kheyr qabtaa kaaga dhigo wax walbana waad helaysaa waxaad weynaysan ma jirto shilinka aad meeshaas ka heli jirtana dee saad uga dhaarata ha ka ahaado iyo fanka saad ugu dhaaratana ha ka ahaado dib dambana ha ugu laabanin insha allah mid ka bedelan oo ka qeyr badan ayaad helaysaa hadduu ilaaha yihaaho idinkana walaalayaal gabadha walaasheena waa siday tiraaday muuqaalada aad ka haysaan tiktok ha noqdo mise ha noqdo youtube ka wada saara ma fiicna adduunyada way soo gabgowdo waxa arag ma lahan ma faham de dadka dhalinyaradana waxaan jeclaan lahay inaan faa'iido kale mise aan fikrad kale idin sheego intaad yartihiin guursada ee ubad iska reeba si hadhow markaa dhimatid ubadkaaga uu kugu duceeyo ma faham laakiin adoo dhalinyaro haddaa dhimatid aad waay xanuun waay ma fahamteen marka insha allah annagana ilaahay hanoo sahlo ma fahamteen waqtigii iyo guurkaba marka idinkana sidoo kale waxaa laga faa'iidaysta janiska maanta haysatid beri ma helaysid marka intaasna waa fariin ay idiin soo diray hadduu la yidhaaho peace and love walaalahayga